telefishinka dawladda Bahrain oo kamid ah dalalka Khaliijka ayaa waxa laga sii daayay barnaamij la yiraahdo waad u qalantaa ama anta kufu waa barnaamij aad iyo aad xiiso ugu yeeshay dunidana si weyn ugu faafay inkasta oo barnaamijkani aanu ahayn barnaamij cusub oo rabadaantii sanadkii horena uu ka baxay telefishinkaasi haddana farsamada lagu sameeyay qaabka loo diyaariyay waliba dhaqaalaha la geliyay dadka la soo doortay waxa soo dhan marka la isku daro waxa uu noqday barnaamij dunida xiiso weyn ka abuuray waliba waa barnaamij qalbi taabasho ah kusoo dhawaada barnaamij ka duwan barnaamijyadeennii hore iyo waliba qaab ka duwan iyadoo barnaamijkan uu yahay barnaamij aynu ku sameyn doono reaction oo isla daawan doono barnaamijkaasi aan idin sheegay ee anta kufuwo oo ka baxa telefishinka Bahrain xalqad la soo daayay ama qayb la soo daayay 4 bishan April ayaynu daawan doonaa oo lagu soo qaatay Dr. Khalil ama Sheikh Khalil oo kamid ah dadka waxtarka weyn ka geystay dalkaasi barnaamijkan haddii aynu dib ugu noqono taariikhdiisa waa mid lagu beegsanayo dadka halyeeyada ah ama magaca kule ama abaalka kule bulshada ee waxtarka weyn geystay Khalil isagu waxa weeye aabaha agoonta naanaysta looga yaqaan dalkaasi weeyaan waxa uu hayaa welina uu in badan noloshiisa kamid ah ku bixiyay daryeelka iyo waliba waxbarista agoonta iyada oo markaasina oo halkaasi ka qaatay naanaystaasi aabihii agoonta haddaba Khalil qaabka barnaamijka loogu soo marti qaadayo qaabka isagoo ogeyn qofka looga yaabinayo ama loo sameeyo waxa loo yaqaan surprise qaab cajiib ah oo qofkuna aanu filayn ayaan isla daawan doonaa barnaamijku wuxuu nagu bilaabmay iyada oo la sameeyo la diyaarinayo qalab kala duwan oo codkii leh kamarada kala duwan la rakibayo oo meelo kala duwan kamaradaha lagu xirayo taasoo aad ka arki kartaan qalabka la diyaariyay in uu yahay barnaamijkan barnaamij dhaqaale aad u badan oo ku baxay aan isla daawano haddii waliba aan idinku darana Khalil marka hore waxa lagu soo casuumay oo lagu soo siray gaari cusub oo tijaabinayna adiga magac baad leedahay gaariga noo tijaabi oo kan marka gaarigu wada wado cusub oo cidla ah ayuu maraya waana wado loogu sii tala galay kadibna inshaarada ku baxaysa si ku tala gala ayaa inshaarada loogu shigay baabuurtan hareeraha ka soo gashay qudhoodu qorshaha kamid yihiin oo waxa weeye baabuur la soo diyaariyay ninkaas aad arkaysaan ayaa hagaya hadda wuxuu tilmaamay in kooxdaasi oo sida kelmado ay ku qoran tahay shaqadiisa iyo waliba xuska loo sameeyo ayaa meesha la dhigay oo ah naanaystaan sheeginay waxa tahay aabaha agoonta waxa nagu leedahay abaal sida arkaysaan farxad ba ka muuqata hadda shaashad weyn baa la soo mariyay meesha oo iyadana ay isla eriyadii ay ku qoran yihiin loogu mahadnaqay Dr. Khalil farxad aad u weyn baa ka muuqata wajigiisa sida arki karaysaan iyo niyadiisa oo aad iyo aad farxad weyn ay uga muuqato marka la shaashad kale tii hore ka sii weyn baa hormaraysa oo ay ku qorantay anta battle waxa tahay hero haliyay waddankayagu leeyahay barnaamijkan erey kasta oo ku jira iyo qaabka loo sameeyay markaad eegtid waa mid aad u shucuurtiisu ay cajiib u tahay oo aan xataa la turjumi karin ereyada qalbi taabashada ah ee loogu mahadnaqayo qofka haliyayga dadka la wareysanayo oo in arki doona xagga dambe waxa ku jira dadkii uu abaalka u geystay ehelkiisa ayaa qofka la wareysanaya oo la weydiinayo shakhsiyadiisa caankayta marka hadda Khalil uu ooyaya laakiin waxaan ogeyn gaariga kamaradaha ku xiran gaariga xataa wax laga controlaya gabigiisa meel ka baxsan isaga waana idin sheegay baabuurta hadda hareeraha ka maraysa isaga qorshaha ku jiraan mid kasta muraayaduhu dalacday kadibna magaciisa sawirkiisa ka soo baxay iyadoo loo mahadnaqayo isna uu u qaadan laayay waxa socda waana arkaysaan ilintaas ma aha dhayal waa qaab barnaamijka loo diyaariyay ayaa ah qaab aad iyo aad shucuurtiisu ay cajiib u tahay oo la yaab aad ah ayaa loo sameeyay goobtan ay doorteen gudheedu ayaa ah goob wax badan ay ka suurta galiyaan oo shaashado waaweyn ku yaalaan anta kufu wata hadda ka soo baxday shaashad weyn oo gudaar ku taala waad u qalantaa abaalmarintan ama waad u qalantaa in lagu mahadnaqo waxaanay ina tusaysaa muhiimadda ay leedahay in markasta halyeeyadeena aynaan ilaawin waxa jira mar walba halyeeyo nagu dhex nool oo aynu u baahanahay inaan xusno oo xusuusano oo aynu sida reer Bahrain cid walba way leedahay dad waqti galiyay oo u dadaalay
hadda gaarigii baa la hadlaya oo systemka gaariga laftirkiisa meel baa laga xukumaya FMkii gaariga shiday waa loo mahadnaqay sidoo kale waxa iyaduna cajiiba shaashada gaariga iyaduna hadana shidmaysa waxa laga daawasiinaya barnaamijkii markaa kadiska ahaa ee loogu talagalay oo ah in la wareysto caruurtiisa la wareysto dadkii la shaqeynayay ama haweeneyda maamusha mashruucan isagu maamulo kala shaqeysa dad uu caawiyay iyo saaxiibkii iyo walaalkii dadkaas la wareysanaya wata bilaabantay dadkaasina waxa ay mid waliba hadii aanu soo koobno oo si kooban aynu dhaafno uu sheegayaa shakhsiyadda Khaliil qaar waxa sheegayaan abaalku uu galay oo ah dadkii hadda ninkan hadlaya waa walaalkii qofka ku xiga ama ninka kalena waa wiilkiisii dad badan baa ku jira oo saga shakhsiyad badan ama aqoon badan u leh dadkaasina waxay sifaynayaan waxay ku yaqaanaan ama dabeecadda ay ku yaqaanaan oo ah dabeecad cajiiba isaguna si dhaygaga buu uga dhex daawanaya gaarigii shaashadii gaariga ku dhex taalay maadaama gaarigu gaari cusub yahay dhammaantood mid waliba wuxuu ku cabirayaa qaabka ama sida uu yahay ninkani nin la yaab leh qof naxariis badan waqtigiisa oo dhangeliyay ehelkiisa waxay sheegayaan in naftiisa iyo noloshiisa iyo qoyskiisa iyo ganacsigiisa iyo wax kasta uu ka hormariyo nolosha dadka agoonta ah ee reer Bahrain sidii ay nolol waarta ay u heli lahaayeen gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waa tan baabuur badan iyo dad badan waa tan ii sheegay barnaamijkan dhaqaale aad u xoogan baa lagu bixiyay mar qura wadadii uu marayay waxa isku bedeshay goob munaasabad lagu qabanayo boqolaal dad ah iyo boqolaal gawaadhiya ayaa soo taagay isagoo ilmeynaya wakaas gaariga ka soo degay markan dabatana halkaas munaasabadii loogu qabtay gabigeedaba lagu abaal marinayay waxyaabaha barnaamijkani oo cajiibka ku yahay kamid qaabka loo diyaariyay ayaa ah qaab qalbi taabasho leh hotel weyn iyo meel iyo dhaqaale iyo dhaldhalaal islama tagin qof waliba wuxuu soo qaatay warqad yar ama sticker ku qorantay anta kufuu waxa tahay ama wadu qalantaa iyo sidoo kale haliyay baa tahay ereyo la xidhiidha shaqadiisii ereyo la xidhiidha wixii uu dadka reer Bahrain u qabtay ayaa la soo qaatay wadada dhexdeedii ayaa qof kamid ah ehelkiisa loogu dhiibay abaalmarinta ama bilada uu barnaamijkan bixiyo ay ku qoran tahay kufuu ama wadu qalantaa hadda halkaas loogu gelinaya qab dhismeedka barnaamijka hadii aanu ku sii socono waxyaabaha kale la yaab kale waxa kamid ah wuxuu ku dhamaanaya marka u dambaysa isagii la wareysanayo ama qofkii martida ahaa la wareysanayo oo la oranayo ka waran dareenkaaga ila qofkan isagoo caadi ah ama nolol caadi ah ku jira qab la kulansiyo marka farxadana waxa ugu muhiimsan waa farxadda lagaaga naxiyo farxad waa naxdin ayaa ugu cajiibsan waxa marka uu ka hadlayaa iminka Khaliil in uu aanu filayn wixii loo sheegay la yiri gaadhaan nala eegaysa gaariga uu waday shaarici uu istaagay mar qura jaamka noqday iyo boqolaalkii dad iyo boqolaalkii magaciisa uu arkay kadib waxa lagu gabagabeeyay dadkii ehelkiisa iyo asxaabtiisa aad ka yaqaanay ee caruurtiisii inantiisii inankiisii walaalkii dadkii baa mid kasta wuxuu leeyahay baaba Khaliil mudane Khaliil professor Khaliil qof waliba magaciisa title-kii ugu yeedhiyay waad u qalantaa anta kufuu halkaas ayuu ku dhamaanaya barnaamijku waa barnaamij taxana ah oo Ramadaan tan ay xalqado badan ama qaybo kala duwan oo badan ay ugu tala galeen dadkooda inay daawadsiiyaan telefishinka Bahrain qaybaha kalena waynu la socon doonaa